Yurubta horta waxaan rabaa intaan niman inaan noqdo oon dee Hargeysa iyo wadankii soo maro oon Jigjiga soo maro oon maan horta لين soo بدر حستان ملاين inaan soo cibaadaystaan rabaa. لين بدر حستان ملاين Liinta meeda liintaan u niyo لين waa جعل liinta لين niyo جعل liinta لما مرة tabe horta mid baa jirta Cabdirasaaqo liintu waa tii xaafadina lagu soo sameynayay liisha shay hadday tahay waa iska xumaan lahayd mala socotaa. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida dacalada ka joogtaan halkani waa Hoobaan Media fadlan taawo calaamada subscribe si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada halkan aan soo gelin sidoo kale walaal macaan like saar muuqaalka kana mid noqo kumanaanka kun ee qof ee nagu xidhan wad mahadsantihiin. Nimcan Hilaac ayaa markii ugu horeysay waraysi bixiyay waxa uu ku shaaciyay in uu imanayo Somaliland gaar ahaan Hargeysa sidoo kalena uu tilmaamay in Somaliland iyo Hargeysa ay tahayba meel uu isaga u dhashay sidoo kalena ay yihiin dadkiisa waxaana uu sheegay in dhawaan uu ku soo food leeyahay waxaana uu tilmaamay in uu ku soo cibaadaysanayo taas oo uu la jeedo in maalmaha ciidda Adxaa laga yaabo in Hargeysa uu soo gaaro haddaba waraysigan aad u dheeraa Nimcan Hilaac laga qaaday ayaa noqday mid saameyn leh waxaana muddooyinkii ugu dambeysay Nimcan Hilaac uu ahaa mid si weyn uga soo horjeeda in uu yimaado Somaliland taas oo la tilmaamay Nimcan in markii uu fankiisa horumaray sidoo kalena uu in badan fankiisu ahaa mid reer Somaliland iyo reer Hargeysaba ay ka qayb qaateen si weyn ay uga qayb qaateen Hargeysana ahayd meeshii uu ku soo shaabaxay kadibna uu galay kooxda xidigaha geeska uu noqday mid ku caasiyay dadkiisa waxaana uu ka doorbiday in uu markastaba heesa iyo sidoo kale hadallo kaga soo aflagaadeeyo banaanka taas oo dhawaan ay ahayd markii heesa uu ku soo karbaashiyo Somaliland ay u soo qaaday waxaana arrinkani uu ku soo beegmayaa xilli waqti xaadirkan uu shaaciyay in Hargeysa ay tahay magaaladiisii uu aad ugu faraxsan yahay in uu yimaado sidoo kalena dalxiis u yimaado mana jirin hadal ilaa intaasi dhaafsiisan ilaa intii uu tagay gudaha Mareykanka Somaliland oo ka tagay uu gabiyaanba dadka reer Somaliland iyo guud ahaan kuwa taageeraba uu u sheegay Nimcan Hilaac waxa uu ka mid yahay fanaaniinta aadka u da'yar leh muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ahaa mid wacdara ka sameynaya dhanka fanka waxaana uu soo saariyay heeso kala duwan oo ku saabsan jacayl iyo kuwa wadaniyiin ah waxaana inta badan muuqatay Nimcan Hilaac in uu gabiyaanba mucaarid xoogan ku ahaa Somaliland taas oo la sheegay in waxyaabaha uu mucaaradnimadiisu ay salka ku hayso qabiil ama waxyaabo kale taas oo la sheegay in muddooyinkii ugu dambeysay ee uu isku dayay in gudaha Somaliland uu ku soo geliyo calanka